بسم الله الرحمن الرحيم ومالين بتراadaha labada bisha June sanadka 2026 oo ku beegan 16 bisha Dhulhijja sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii wararka maanta qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah xiisada dagaal ee Iran iyo Mareykanka ayaa mar kale maanta cirka isku shareertay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya diyaar garow dagaal iyo hadallo dhiilo colaadeed xambaarsan sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Iran oo wacad ku maray inay jawaab adag ka bixin doonaan gardarro kasta oo ka dhanax dalkooda taliyaasha ciidamada Mareykanka ee daafaha caalamka oo dhankooda heegan buuxa la geliyay Netanyahu oo ku andacooday in nidaamka Iran uu ku dhow yahay burbur dagaaladii ka dhex aloosnaa Xisbullah iyo Israa'iil oo halkoodii ka sii socda inkastoo xabad joojin uu ku dhawaaqay madaxweyne Trump militariga Israa'iil oo qirtay khasaaro hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray dagaalka nin 6 qof oo ay isku qoys yihiin ku dilay gobolka Iowa ee dalka Mareykanka ka hor intii isna uusan isdilin askar Mareykan iyo Ingiriis ah oo ku geeriyooday dalka Ciraaq dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan wixii war ah ee degdeg ah soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka maanta soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka nimca cabdikariim timacade oo barnaamijka ila talantaalinaysa maanta ayaa inoogu bilaabaysa wararka kuwooda safka hore ku jira nimca mahadsanid mawlid maalin wanaagsan maanta aynu ku bilaawnay wararkeena wararka ugu dambeeyay ee ka soo baxay xiisada colaadeed ee bariga dhexe ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee IRGC ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dhammaan xaaladaha suurtagalka ah iyadoo ay taagan tahay colaadda kala dhaxaysa Mareykanka isla markaana laga cabsi qabo in dagaalka uu mar kale dib u qarxo wakaalada wararka ee Faris ee Iran laga leeyahay ayaa soo xigatay afhayeenka ciidamada IRGC Ali Maxamed Meini oo ciidamadiisa sheegay inay u diyaar garoobeen dhammaan xaaladaha ka dhici kara gobolka Ali Maxamed Meini oo hadalkiisa si ambaqaadaya ayaa waxa uu yiri haddii cadowgu dib ugu soo laabto goobaha militariga nooca hawlgalka juqraafiyada dagaalka iyo xitaa nooca hubka la adeegsan doono waa ay ka duwanaan doonaan kuwii hore Meini waxa sidoo kale uu sheegay in la xaqiijiyay madax banaanida Iran ee marinka Hormuz isagoo carabka ku adkeeyay in maareynta marinkaasi ay ka mid tahay awoodaha Iran ay leedahay dhinaca kalena sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Iran ayaa sheegay in dib u bilaabashada dagaalka dalkiisa kala dhaxeeya Mareykanka uu yahay mid aan laga baaqsan karin oo goor kasta dhici kara xilli wada xaajoodada u dhaxeeya Tehran iyo Washington ay u muuqdaan kuwa hakad galay Mareykanku waxa uu dalbanayaa in si buuxda isu dhiibno shacabka Iran marnaba isma dhiibi doonaan ayuu yiri Maxamed Jafar Azadi oo ah ku-xigeenka madaxa taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Iran ee xarunta howlgallada Qatamul Anbiya Azadi oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri haddii aan isdhiibi karin dagaal waa lama huraan war kale oo la xiriira arrimahani wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa Mareykanka ayaa daabacay warbixin uu ka soo xigtay ilo wareeda taasi oo lagu sheegay in saraakiisha militariga Mareykanka ee ku sugan saldhigyada Mareykanka ee daafaha adduunka ay sare u qaadeen heerarkooda ilaalinta iyo amniga iyagoo filaya suurtagalnimada dib ugu soo noqoshada dagaalka tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo ay hakad galeen wadahadaladii u dhaxeeyay Tehran iyo Washington isla markaasna Iran si cad ay u sheegtay in ay hakisay wada xaajoodadii aan tooska ahayn ee ay kula jirtay Mareykanka sabab la xiriira weerarada Mareykanka iyo in uu xakameyn waayay Israa'iil oo dagaal ka wada waddanka Lebanon
wararka Iran aynu dib ugu laabanay wakaalada wararka Iran ee maahire Iran laga leeyahay ee soo xigtay ilo ku dhow ergada wada xaajoodka Iran oo yiri in qoraalka hindisaha isafgarad lagu heshiiyo u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka uu wali ku jiro ka fiirsi isla markaana aan wali wax jawaab ah loo dirin. ilo wareedka ayaa sheegay in sabab la xiriira ku guuldareysiga fulinta ballanqaadyada Washington iyo kalsooni darrada ay qabaan ay ku riixayso Iran inay ku dhaqaaqdo hanaan taxadar heer sare ah leh. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in Washington ay ka walaacsan tahay dagaal halka Iran ay ka walaacsan tahay lafteeda heshiiska gudihiisa waxa ku jira iyo sida loo fulin doono iyadoo sabab uga dhigaysa way aragnimadii hore ee ku qasbaysay inay raadiso damaanad qaadi lagu xoojinayo faa'iidooyinka dhabta ah ee heshiiska. xagga Israa'iil ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku andacoonaya waa sida hadalka uu dhigaya in tiirarka uu ku dhisan yahay nidaamka Iran ay dildilaaceen isla markaasna aysan dib u soo noqon doonin sidii hore ugu dambeyntiina nidaamkaasi oo burburi doono. waxaan idin sheegayaa in dhamaadka nidaamka Iran uu yahay inuu dhaco ayuu yiri Netanyahu oo maanta hadal jeediyay. watahay haatana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay xiisada colaadeed ee Xisbullah iyo Israa'iil. dhinaca koonfureed ee wadanka Lebanon militariga Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in laba askari oo ka tirsan ciidankooda ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn oo walxaha qarxa lagu soo rakibay taasoo ay fuliyeen dagaalamayaasha Xisbullah subaxnimadii hore ee maanta oo Talaada ah. IDF ayaa sheegtay in askarta dhaawacantay loo qaaday isbitaal isla markaana qoysaskooda lagu wargeliyay dhacdada iyo dhaawaca soo gaaray askarta. dhinaca kale warbaahinta maxalliga ee dalka Lebanon ayaa sheegaysa in ciidamada Israa'iil ay fuliyeen duqeymo xagga cirka ah oo fara badan oo lagu bartilmaameedsaday magaalada Nabatiya oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee koonfurta Lebanon. magaaladan oo ah xarun istiraatiiji ah oo muhiim u ah Xisbullah ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa hareereeyay ciidamada Israa'iil iyadoo ciidamaduna ay si wadaan dhaqaaqooda dhanka waqooyiga ay ku wajahan yihiin. isla arrimahan weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay geysteen ayaa lagu dhiftay magaalooyinka Kafarsiriya halka weerar kalena lagu beegsaday wadada aada Homin al-Fawqa ee duqeyn cirka ah oo Israa'iil fulisay ayaana sidoo kale waxaa lagu beegsaday oo lagu garaacay duleedka Yahmur al-Shaqiif. dhankeeda wasaaradda caafimaadka ee Lebanon ayaa sheegtay in 6 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah lagu dilay weerar Israa'iil ay ka fulisay deegaanka Marwaniya ee koonfurta dalka dhaca halka 4 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. war kale oo colaadan la xiriira wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Israel Katz ayaa sheegay in howlgallada military ee koonfurta Lebanon ay sii socon doonaan xaalad kastaba ha ahaatee. Katz ayaa sidoo kale sheegay in militariga Israa'iil uu daraasada ku wado suurtagalnimada fulinta howlgallo dheeraad ah oo ka dhaca gudaha Lebanon isagoo ku nuuxnuuxsaday in weerarada la ballaarin karo iyadoo lagu salaynayo xaaladaha ka jira xadka. waxa uu farta ku fiiqay in hadafka muddada fog ee Israa'iil uu yahay in laga dhigo Xisbullah aan hubaysnayn waa sida hadalka u dhigay halka mudnaanta degdega ah ay tahay in laga saaro hubka kooxda ee ay ku haystaan deegaanada koonfurta webiga Litani ee imika sida hadalka uu yiri ay gacanta ku hayaan ciidamada Israa'iil. waa hagaaga markana aynu eegno qodobada kale ee wararka maanta ku jira. hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee Xisbullah iyo Israa'iil militariga Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in ay wadaan duqeymo kala duwan oo ka dhanaha koonfurta waddankaasi ee Lebanon. waxaana ciidanka Israa'iil ay soo saareen amar dadka looga dalbanayo inay iskaga baxaan deegaano hor leh. waxaana la sheegayaa in deegaanka Al-Haniya oo ka tirsan magaalada Suur duqeyn ay ku socoto. xaafadda Shawkin ee Nabatiya ayaa ka mid ah meelaha xilligan duqeymuhu ay ka socdaan. diyaarad drone ah ayaa sidoo kale waxay beegsatay magaalada lagu magacaabo Kafarzia al-Khilla oo ina ka tirsan degmada Suur ayaa duqeyn laga soo warinaya. sidoo kale militariga Israa'iil ayaa sheegaya inay ka hortageen gantaal Xisbullah ay ka soo riday
koonfurta waddankaasi Lubnaan oo ku soo wajahnaa waqooyiga Israa'iil. waa hagaag daawadayaal goordhow waxaanu gudbaynaa falanqayn ku aadan xaaladda colaadeed ee bariga dhexe ee Iiraan iyo Mareykanka u dhaxaysay weliba sidoo kale dagaalka Lubnaan ka socday ee u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil xaaladii ugu dambeeyay balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiina soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad daawanaysaan oo la socotaan barnaamijka wararka maanta oo si toos ah idinkaga imaanayo istuudiyaasheena koowaad iyo labaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTubeka, Twitterka iyo weliba Telegramka idinkoo warar degdeg ah faallooyin iyo macluumaadyo ka akhrisan kara oo ka heli kara bogga aynu internetka ku leenahay ee ka dhigo weelkaaga wararka. waa hagaag haatana aynu Mawlid iyo xagga falanqaynta qoraansano. Mawlid maxay ka macno yihiin wararka ka soo yeeraya Iiraan iyo Mareykanka ee ku aadan in diyaargarow dagaal lagu jiro iyadoo sidoo kalena laga cabsi qabo ama ay xoogeysanayso cabsida ku aadan in dagaalka mar kale uu dib uga bilowdo gobolka? Nooca runtii horta arrinta arrin cusub ma ahan oo waxaynu ka warqabnaa xitaa iska horimaadyo kooban inay dhaceen oo la saadaalinayay suurtagal inay tahay dagaalku inuu bilowdo laakiin hadalladan ka soo yeeraya dhanka Mareykanka ee la xiriira in dhammaanba saldhigyada militariga ee Mareykanka heegan buuxa la geliyay taliyaasha ciidamada warkaas ayaa wuxuu noqonayaa war dhiila xambaarsan. Iiraaniyiintu iyagoo mar walbaba way ka digayeen arrinkan la xiriira jawaabta ay bixin doonaan iyo inaan caana laga dhami doonin haddii ay dhacdo mar kale in la soo weeraro. weli waxaad moodaa Iiraaniyiinta hadalladoodii ugu dambeeyay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay inay ku celcelinayaan hub aysan horey u isticmaalin inay isticmaali doonaan. lama oga hubkaasi waxa uu yahay si gaar ah marka loo eego inuu yahay hub ay ka heleen Shiinaha ama Ruushka ama haddii si kale loo yiraahdo hub gudaha lagu farsameeyay oo dagaalkii hore aan fursad loo helin in la isticmaalo ama ay dhiganayeen oo islahayeen haddii dagaalku uu xoogeysto hubkaasi isticmaala. arrinta laftigeeda waxay noqotay arrin walaac xambaarsan. hogaamiyaasha wadamada khaliijka ayaa iyaguna arrintan si weyn marada waxay ugu raxayaan sidii looga hortagi lahaa dagaal waxaana ay sheegayaan iyagu inay yihiin cidda ugu daran ee dhibaatadan ay saameynayso si gaar ah waddanka Qatar, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Kuwait, Ciraaq iyo Cumaan intuu ay ka hadlayaan saameynta arrintan ay ku leedahay iyadoo welibana xilligan la galay xilligii kulaylaha. marka arrinta markay dhinac kale ka eegana waxaa muuqata in wadaxaajoodkiina uu dhinac ka socdo oo hadda Iiraan waxay ka baaraan degaysaa hindisihii Mareykanku u soo gudbiyey oo ay jawaab ka bixin doonto. marka waxaad moodaa in macluumaadkan oo dhan ay ku soo aadayaan xilli Iiraan ay joojisay oo xalay ay ku dhawaaqday wadaxaajoodkii Mareykanka ay kula jirtay ee dadbanaa isla markaasna weliba dignin ay ka soo saartay inay weerari doonto Israa'iil waqooyigeeda haddii la weeraro magaalada Beirut. inkastoo aad moodo in isla markiiba arrintaasi ay ku noqotay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump arrin culus oo degdeg u qaaday tillaabooyin kala duwan gaar ahaan in uu la hadlay Netanyahu oo ku yiri jooji dagaalka aad damacsanta inaad ku qaado magaalada Beirut. marka arrintan dhan waa dhanka diblomaasiyadda dhan waa diyaargarow dagaal dhinac waxay khubaradu leedahay suurtagal waxa ah dagaal gaadma ah Iiraan in lagu qaado iyadoo la beegsanayo hogaamiyaasheeda muhiimka ah. arrintaas laftigeeda meesha ku jirta Iiraaniyiinta inay iskala dhigtaan oo la yiraahdo wadaxaajood baa socda ilaa waxaynu ka warqabnaa dagaalkii bilowday 13 bishii June ee 12 maalmood socday iyadoo wadaxaajood lagu jiro ayuu bilowday oo Cumaan ay waday dhexdhexaadinta. waxaa kaloo dagaalkii 18 February bilowday ee 40 maalmood socday isna uu ku soo aaday maalin Sabtiga in la bilaabay dagaalka iyadoo Isniinta lagu ballansan yahay in lagu kulmo magaalada Vienna ee waddanka Austria. arrintaasi oo si weyn loo filayay in isfaham u imaan karo la xiriira barnaamijka nuclear-ka Iiraan. marka Iiraaniyiintu waxay leeyihiin dabcan wayna maqlaynaa saraakiishooda waayo aragnimadii hore ayaa meesha ku jirta laakiin hogaamiyaashan hadda kulamada wadwada caalamka la xiriiraya wadaxaajoodada wada ma dhici karta ayaga in la beegsado oo si gaadma lagu laayo. arrinkaas waa arrinka ugu weyn ee Iiraaniyiinta ay ka hadlayaan
marka laga hadlayo masraxyada siyaasadda iyo sidoo kale baraha bulshada. waayahay mawlid sidaad ka dhawaajisay Trump iyo sidoo kale Netanyahu waxay ka wada hadleen arrimo Lubnaan ku saabsan wadahadalkii dooda kulul ahaa ee canaanta ku jirtay dhex maray Trump iyo Netanyahu arrintaasi maxaa loo fasirtay iyada horta dad badan baa arrintan ka hadlaya nimcay qaar badan oo ka mid ah qobarada waxay leeyihiin arrintan waa boor isku qaris iyo hoosaasin waxay leeyihiin waxaa suurtagal in la qorsheynayo duulaan military aan dib ugu laabanno dagaalka Gaza markii la sheegay inay isku afgaran waayeen waa bishii May waa sanadkii hore madaxweynaha Mareykanka waa isagii booqday Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta xilligaasi ma aanu tegin Israa'iil waxa aad suuqa loo geliyay inay isku khilaafsan yihiin dagaalka Israa'iil ka wada Mareykanka Gaza iyo qorshihii nabadeynta ee Trump uu waday in Netanyahu uu ka biidiiray hadda bishii ku xigtana waxa dhacay dagaalkii Israa'iil ku qaaday marka hore Iran oo markii dambe dagaalka uu ku soo biiray markuu 10 maalmood socday ilaa 12 maalmood madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bil ka horna khilaaf baa la sheegay waliba madaxweynaha Mareykanka uu san cag dhigin Israa'iil oo diyaarad ku dul maray arrintaas marka waxay noqotay arrin shaki badan xambaarsan dagaalkii xitaa sidoo kale dhacay February waxaa la isku khilaafsan yahay arrimo kala duwan gaar ahaan qodobka ugu weyn oo ahaa dilka Ayatollah Ali Khamenei Trump dhowr jeer wuxuu yiri waa naqaanaa meeshuu joogo waa dili karnaa laakiin anigu hadda ma rabo arrintaasi laakiin hogaamiyaha Iran nin dhuuntimo ahaynba magaalada Tehran ee caasimadda ah xafiisyadiisa iyo gurigiisa iyo meesha uu deganaa ilaa iyo intii xukunka u hayay ayuu deganaa Mareykanka Israa'iil marka waxay ka dhigayeen nin buuraha ku hoos jira oo gabaad galay oo god ku hoos jira laakiin arrintu sidaas ma ahayn oo dabcan waynu aragnay markii la dilay in lagu dilay isla xafiiskiisii iyo gurigiisii oo sameen la ka aadin xaaskiisii carruurtiisii in badan oo ka mid ah qoyskiisina ay ku dhinteen hadda marka waxay leeyahay waxa ugu weyn waa sida qobarada sheegayso ee Mareykanka iyo Israa'iil sirdoonkooda ay la yaabihiin waxa weeye meesha uu jooga Mujtaba Khamenei waxa kaloo suurtagal ah baadigoob in lagu hayo hogaamiyaha Xisbullah Sheikh Naciim Qaasim oo aan la ogeyn inuu joogo Lubnaan ma Beirut buu joogaa ma Tehran buu joogaa haddii ay u suurtagal yihiin waxa leeyahay ma cafiyeen labada ninba arrintaas inay qaadaan in marka arrintu ay tahay arrin boor isku qaris ah oo xitaa haddii ay leysmari waayo oo Iran ay soo istaagto Mareykan Hormuus ka tanaasuli mayno nuclear-kana ka tanaasuli mayno qobarada qaarkood waxay leeyihiin waxa suurtagal ah dagaal in la bilaabo haddii dagaalkan la bilaabana suurtagal waxa ah in siyaasiyiinta taa la beegsado waxaanu ka warqabnaa dagaaladii hore inta badan waxa la beegsan jiray hogaamiyaasha ciidamada ka soo qaada wasiirka gaashaandhigga oo kale Aziizade wasiirkii arrimaha sirdoonka taliyayaashii ciidamada Ali Larajani oo ahaa madaxa golaha amniga qaranka dadka la beegsanaya marka waxay ahaayeen xilligaasi dadka militariga ku jira laakiin hadda suurtagalnimada waxa ah in la beegsado qalibaaf oo kale inkastoo uu yahay siyaasi oo baarlamaanka uu hogaaminayo laakiin haddana waxaa la hubaa inuu yahay nin taariikh ciidan leh la soco wuxuu ahaan jiray duuliye diyaaradaha dagaalka wada dagaalka Iran ka qayb qaatay waxa kaloo lagu tiriyaa inuu yahay nin aad ugu dhow hogaamiyaha sare Mujtaba Khamenei rag kaloo muhiim ah jira hadda ninka lagu bedelay Ali Larajani oo kale Zulkhar isaga quddiisa waa nin muhiim ah waxa kaloo ayaguna muhiim ah hogaamiyaal kale oo xagga shuurada ayaguna qayb ka ah oo hawshan wada taliyaasha ciidamada ee iyaguna jira meesha oo ayaga qudooda suurtagal ay tahay in la raadinayo in la beegsado Mareykanka iyo marka Israa'iil waxa leeyahay haddii dagaal ay qaadayaan ma aha dagaalkani dagaal kullu foo ka dhaqaaqa waa dagaal lagu talagalayo in hogaamiyaal badan la beegsado oo ay suurtagal tahay Iiraaniyiinta xiriirkan ay ku jiraan in markaa la sameeyo marka dad badan waxay leeyihiin wada hadalkan telefoonka ku dhex maray labada nin warka waxa soo gudbinaysa shabakada Axios waliba wariyaasha soo gudbinaya waa wariyaal lagu yaqaan arrimaha Israa'iil inay aad u bumbuuniyaan macluumaadka inkastoo uu sheegayo in meel xun la kala gaaray wada hadalka oo ay gaartay in Trump uu ku yiraahdo Netanyahu
waad waalan tahay aniga noloshayda inta aan noolahay ayaad meesha joogtaa ma ahane haddii aan anigu lahayn maad geli lahayd oo kale erey culus ereygaasi oo kale waad waalan tahay oo kale ereyga ku jira oo kale culus wuxuu ahaa Israa'iil meel walba ayaa laga nacay adigana meel walba laga nacay hadalada marka hadalla sahlan ma aha laakiin waa la ogsoon yahay labadana si saaxiib u yihiin waxaynu ka warqabnaa markuu booqday aqalka cad ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu yiri saaxiibkii ugu weynaa ee abid aqalka cad fariista waa Donald Trump Trumpna muxuu ku yiri Netanyahu waa hogaamiye dagaal Israa'iil la'aantiis muu jiri lahayn dagaalkan hadda ay ku jirto waa garan kartaa marka meesha arrintu ay joogto iyo say isku yihiin marka shakigaas wuu jira Iiraaniyiinta qudooda si taxadir leh bay u qiimeynayaan hadallada ka soo yeeraya dabcan dad badan oo arrimaha military ka faalada waxay leeyihiin Iiraaniyiinta dharbaxadii jugtii soo gaartay saraakiishii laga laaciyay hadda waxaa suurtagal ah inay ka galayaan heegan iyo feejignaan walow ay u badan tahay inay yihiin dad aan kala jeclayn geerida oo leh qofka markii alla uu qadaro ayuu dhimanaya fikir caynkaas oo kala bay qabaan waxaynu ka warqabnaa sida la sheegay Ayatollah Ali Khamenei markii la dilayay inuu diiday in la wado oo la geeyo meel ammaan ah oo meesha hadda uu joogo Mujtaba Khamenei wuxuu yiri maya 90 milyan ee Iiraaniyiinta ah anuu kama naf fiicni buu yiri dadkaas aan la mid ahay buu yiri marka meel aan aadayay ma jirto gurigayaan joogaya laakiin ujeedadu kala hayna way dhacday waxay ahayd inuu mideeyo dadka Iiraaniyiinta dilkiisa dad badan waxay leeyihiin wuu mideeyo dilkiisa waa tahay mawlid xagga kale xaalada dagaalka Iiraan wali waa ka sii daraysaa Trumpna waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin laakiin dagaalku waa socdaa oo sii xoogeysanaya Netanyahu wuxuu ciidanka amray in la ballaariyo howlgallada koonfurta laga wado والله maxay ka dhigan yihiin maxay soo wirgeli laadahay xabad joojintaasi Lubnaan xalay horta ku dhawaaqay Trump wali wuxuu u maray dad buu la hadlay Xisbullah aad ugu dhow waxay u badan tahay inuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka Nabil Barri oo runtii kamid ah dadka Xisbullah aad ka ugu dhow Netanyahu dabcan waa asiga la hadlay laakiin xabad joojintii ma jirto dagaal socda dawladda Lubnaan laba culays baa haysta culays wuxuu yahay Israa'iil dhul qabsanaysa oo koonfurta Lubnaan dhul qabsatay horan u haysatay haddii heshiis la gaaro oo la isla soo fariista meel oo Lubnaan iyo Israa'iil ay fariistaan Israa'iil miiska waxay soo saaraysaa aragtidii hore ee u sameysay oo kale marayka Gaza waxay leedahay anagu diyaar baa u nahay inaan ka baxno koonfurta Lubnaan laakiin Xisbullah hubka laga dhigo dawladda Lubnaan hubka kama dhigi karto Xisbullah ciidanka Xisbullah si kastoo dhaawac u soo gaaray iyo jug ay u soo gaartay way ka awood badan yihiin ciidanka dawladda Lubnaan marka dawladda Lubnaan horta dhibkaas haysta Xisbullahna waxay taagan tahay dagaalkan waan isku diyaarinay Israa'iil ha soo gasho meesha ay doonto siriq iyo daban baan u diyaara askarta Israa'iil hadda waynu arkaynaa maalin walba waxaynu tuminaynaa dhimasho iyo dhaawac baynu tuminaynaa magaalooyinka waqooyiga Israa'iil waa laga qaxay barnaamij aynu sii daynay habeen dhaweeyto waxaan ka mid ahaa duqa magaalooyin kala duwan ama maamulkii deegaano kala duwan inay u kala maqan yihiin wadamo dibadda ah waliba xilli dagaal lagu jiro oo qaarkood sheegay Giriga inay joogaan Berlin oo kale arrintaas marka waxay noqotay arrin walaac ka dhalisay waqooyiga Israa'iil arrintuna marka gudaha Israa'iil culays bay keentay saako kale waxaynu tabanaa taliyihii hore ciidamada oo leh Netanyahu ha iscasilo xabad joojinta marka ma imaan karto inta Israa'iil dhul ay ka haysato koonfurta Lubnaan Xisbullah waxay leedahay taaka kamid ah Israa'iil inay ku jirto ma doonayno Israa'iilna waxay leedahay ka bixmayno koonfurta Lubnaan Xisbullah hubka haysata waayo bariba dagaal nagu soo qaadaysa waxa kaloo loo dhigaya hadalka sida qubarada ay sheegayso in Xisbullah dagaalka ay wadaa uu yahay kaarka Mareykanka iyo Iiraan ay ku wada xaajoonayaan oo Iiraan ay kula xaajoonaysa Mareykanka oo ay leedahay Hormuzna waan haystaa igala xaajo aan ka wada xaajoon Lubnaan xitaa Baamal Mandab oo waxaynu ka warqabnaa xalay inuu yiri Ismaaciil Khani sida aynu ka samaynay Hormuz ayaynu ka samayn doonaa Baamal Mandab haddii marka arrintaas ay dhacdana xaaladda uga sdari kartaa marka Xisbullah waa kaar ay haysato Iiraan oo ay isticmaalayso dagaalkan waxay u soo gashay waxa weeyaan Xisbullah Iiraan darteed bay u soo gashay markii la dilay hogaamiyaha sare maalin kadib 28 baa la dilay kowdii bisha la xaqiijiyay labadii bisha dagaalka soo gashay Xisbullah arrintu marka ma ahan arrin sahlan
wayna adag tahay si lagu helo xabajoojin ilaa iyo inta Israa'iil waa si qobarada hadalka u dhigayso ay doonayso inay dhul ballaarsato. waa hagaag waynu arki doonaa halka ay wax ku dambeeyaan. intaas ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wararka maanta oo si toos ah aad uga daawanayseen HBN Online TV. si aad u heshaan wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino, haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xidhnaynina nagu soo biira. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.